والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka hore saxaafaddu waa salaamantiin. waxaan maanta halkan u soo joogsanay la socoteen waxa maalmahan ina soo dhaxgalay buuqaas oo ahaa labadii diiwaangeliyood oo ahayd mid diiwaangelinta muwaadiniinta iyo diiwaangelinta codbixiyaasha oo is saarantii oo labaduba tan qarana oo ah in dhawaan ay bilaamaan ahayd oo dareen ka dhashay runtii oo ka xukuumad ahaan iyo xisbiyada macaaridka aan dareen dhexdeeda ka yimaadeen aan shalay ilaa maanta ka doodinay sidii la isku soo dhaweyn lahaa faraqa caynkaasa taasoo xeerkii diiwaangelinta muwaadiniinta iyo codbixiyaashooda hor yaallo golaha wakiilada kolka aan isku la fudurnay wax weyn horta meesha yaala ama faraq weyn meesha ma oolin waxa meesha yaala dhowr qodob ahayd qodobadii intii loo arkay qodob inay ka arkaysan kulli waa perception baa la yiraahdo qodob uu basoo farsashaa waxa isla garanay in marka meel isku araada isku keeno waxaan ku heshiinay in maanta xeerka diiwaangelintu sidiisu socdo wixii qodob iyo laba laga taabtayna madaxweynuhu ka daba gudbiyo oo gudbiyo golaha wakiilada si wanaagsan oo ugu dhacday sida dalka Soomaaliland ahaa mar walba isku taasoo iyo tashiga aadna oo noogu dhamaatay saasan ku soo dhaweeyaa isbiisada ka hadli doonaa sida uu dhacay bulshada